السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga Soomaaliyeed meelaad joogtaan boo idin salaamaya Allah idin salaamo yeelo adduun iyo aakhiraba dhammaantiin walaalayaal Soomaali Maxamed meelaad joogtaanba Ilaahay idin salaamo yeelo waa u baahannahay nabadda iyo caafimaadka Ilaahay caafimaad iyo nabad geliyo Allah ina siiyo nabad iyo caafimaad Allah ina siiyo walaalayaal الدنيا أخربا الدنيا أخربا إلهي النبات قليو يا عافمات هالنصي إلهي النجا نبت قلي عذابيس إلهي النجا نبت قلي الشركيس الدون كان كتشر الله النجا نبت قلي ولا عليال مصايبها الدون كان كتشر الله إنك نبت قلي صومالي عافمات الله ينصيو انتي حنوصا إلهي عافمات هالسي صومالي ودنا إلهي عافمات سرعها هالسيو aqligooda Allah u soo celiyo iyo aqoontooda Allah u soo celiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inama tahluukeeyo meelan joognaba walaalayaal Ilaahay inama tahluukeeyo cafi badan iyo caafimaad badan Allah ina siiyo Ilaahay idankiisa Ilaahay inama tahluukeeyo waayo toofos weeye Allah adduunkana ina ku faa'isiyo aakhirana Allah ina ku faa'isiyo intii faa'istay aakhiro الدنيا أقرب كفايستي الله هنا كدقو ذنب جني ذنب وارد كان الله دافو ميلان شوق نبا مية مقالبة بلدية بادية ميلان شوق نبا إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنينا نبت قلية تامة يعافمات تامة يرزق واسعة إله قادر الرحمن كا يدي سنو قوها ويدي سنينا ولا ليال دمانتين صومالي محمدي waxaan u malaynayaa inta af garanaysa waa Soomaali markii boqolkiiba hal ama boqolkiiba nus ama boqolkiiba rubuc laga soo gudbo hadda waxa laga yaabaa afkeena dad badan oo bartay inay jiraaneen inta codkayga garanaysa iyo qoraalkayga garanaysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala meelaad joogtaan ba walaalayaal Ilaahay inoo gargaaro inta aan garanayno inagu aynu dhalnayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigooda iyo dambi waaridkood baa Allah dhaafo Ilaahay waaridkeen ha u naxariisto intii dhimatay intii noolba walaalayaal dhammaantiin awal baan idin sheego waxaan idiri codkayga hore ilaa 2 daqiiqo 3 daqiiqo nafteena iyo adduunkeena iyo aakhiradeena inuu kugu duceeyaa Ilaahay ducadeena hina ka aqbalo intii aamiin tiraadana Allah ka aqbalo intaan dhihinin Allah ka aqbalo Ilaahay idankiisa إلهي سبحانه وتعالى دبت أدون كان كجرت ميل والبابها كجرت الله إنك حجاب ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى خير بدن وإن فيلين إن إلهي قعنتها ينوقلي إن بدقلي بدن وميل والبكر عضة إلهي سبحانه وتعالى دلك إن الله قصو الضبالو وحن ما أنت رواينا كالله ولا ليال وحالي الدب نكي كوكبتها يقانا لي دب ما أنت هدان ميل دب uga joogsado maalin walba ma ku noqonaya meeshii dabka aan uga joogsaday billahi calaykum Soomaalidu waa dad muslim waa dad aqli badan baa la yiraahdaa maantay wadcigan jirana qof aan la socon ama ogeyn ma jiro Soomaali oo dhan waa wada siyaasi Soomaali oo dhan habarta baadiye joogta islaanta baadiye joogta habariga ma mudnay islaanta baadiye joogta Ilaahay dambigeeda ha dhaafay raadiyo ay dhagta ku haysa ama maanta jawaal bay sida taaba warka ka soo dhaca xamar ama ka soo dhaca adduunka meesha ugu dambaysa muxuu ahayto Soomaali inta deganta gobol ay degantahay ama NFD ahaad ama Soomaali Itoobiya ahaad ama Somaliland ahaad ama Soomaalidii kala ha noqoto meelaan laga garanayn ama laga dhagaysan ma jiro Soomaali waa dad waxa la yiraahdaa wax walba dhagaysato war ku nool weeyaa la yiraahdaa war walba oo television ka soo dhaca ama raadiyo ka soo dhaca ama jawaal ka soo dhaca way og yihiin waana la socdaan inta YouTube kaas ka hadashana waa la wada socdaan waa wada og yihiin laakiin ba meesha ku jirta dab qofkii ku gubtaa og baa la yiri waa tan mahmaahda Soomaalida mahmaahda ka been sheegtaa waxa la yiraahdaa Soomaalida mahmaahda kama been sheegto laakiin sidaan u jeedo waa ka been sheegtaa sababtay taa waxa la dab
gabar heestay hadda ka hor oo Kenya markay midhaaqa xootiga u carartay ay hees ay tirisay wali markaan dhagaysto wallahi baan ku dhaartay jirka bay gariira waxay tiri dalkaygow dalxiiska ma ana imaanin waa runteed dalxiis ugama imaanin Kenya ugama ay tagin ilaahay ha u naxariisto gabadha way dhimatay waa Faadimo Qaasin Hilowle waa runteed dalxiis ugama ay tagin waa dabada ulba dabada looga kaxeeyay ilaa ay Kenya u carartay ilaahay ha u naxariisto ayada iyo intii kale oo dhimato muslimabe waa runteed dadkii sidaa ahaa oo ilmahoodii carareen oo caruurtoodii carareen oo caruurtoodii dabada ku baaba'san oo dabadaha ku balaysan oo dabadaha waxa weeye karaamadii rag u lahaa ama hooyadu lahayd looga qaaday maxay uga fakari waayeen Soomaali karaamadoodii baa looga qaaday qofka insaanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala karaamu siiyay qiimo siiyay billahi calaykum dadka karaamadii laga qaaday oo dadnimadoodii laga qaaday oo caruurtoodii la baabiyay oo sidaad aragteen qurbaha ugu wada nool maanta ma inay ama fiirsadaan ama dabka shidaan baa Soomaaliya maanta waxay ahayd Soomaaliya ninkii soo noqda oo Soomaaliya oo dhibaatada qurbaha soo arkay karaamad darrada uu ku jooga soo arkay caruurtiisi dhibaatada haysata soo arkay reerkiisi sidoo noqday soo arkay inuu maanta aqligiisa soo kabariyo soo weynaysiiyay ahayd oo ka fakaro yiraahdo waryaada maxaa inoo haray ma in layna gumaysto badaha layna kaga gudbayo wabiyada ma in dhulkeena layna ka qaadaa inoo hartay waryaada ka daaya ninkii dib wado dhan gacanta uu ka qabto ilaa ninku waxa lay dab ninkii ku gubtay baa soo arkay dhibaato ninkii soo arkay baa ilaa ka waramay inay ka waramaan bay ahayd ma ahay nin walba xoogaa shilimaada intuu ka soo aruursada gaala iyo carab iyo meel walba baa ka yimaadeen inuu gabdhihii yararka ku bahdilo oo darajada ka tuuro oo gabdhii ilmihii ku baabiyo ma ahay gabdhuhu qurbaha ama ha ku dhasheen ama ha ku guursadeen ama ku jooga ma ahan inta qurbihii ka yimaadaan xoogaa lacag ka keenaan reer degan inay ku kala tuuraan oo ninkii guursadaanin oo qurba isagana uga degantahay ilaa uu adduunka ma warqabee ma ahay Soomaalidu halkaasaan ku daynaya hadii la yiri waa aqli badan tahay Soomaalidu haday aqli badan tahay oo aqoon badan tahay maskaxdeeda iyo ra'yigooda iyo dhibaatadii ka soo gaartay wadankeeni dhibaatadii ka dhacday oo ogeydeen oo xuduudi kaga sheekeynaynin waxbay ka bedeli lahayn markay yimaadaan wax badan bay ka bedeli lahayn sababtoo ilaa dab ninkii ku gubtaa soo arkay dhibaato meeray god aad ku dhacdo dhibaato kaaga soo dhacday mar labaad inaad ku noqotid waa ilaahay loo harbaata maanta waxa isku haystaan dawladnimo maanta waxa isku haystaan anaa madaxweyne noqonaya anaa ra'iisul wasaare noqonaya anaa baarlamaan noqonaya anaa makandhiish noqonaya anaa gobol qabsanaya anaa yeelay ayay isku qabsanayaan laakiin dadkana aqli badan una fakaraya meeshan qabow on qabowna ka jirin barafna ka jirin kuleylna ka jirin oo nicmadu taala inay ku qabsadaan baa dul taagan waxaan masqaala daratinka ay isku haystaan wax ka weyn baa dul taagan Soomaalida dad baa waxay uga jeedaan Soomaaliya inay tahay adduunka nicmada ugu dambeysay oo taala inay tahay u jeeda laakiin Soomaalida lahayd wax yar oo masqaala daratin isku haysataan ka fakar miyaan sababtay tahay haday inta u kaadiyaan cagaha dhulka u dhigaan oo dhulka dhigtaan ay ku qaybsadaan waa deeq lahayd iyagoo dhan laakiin hadda uma jeedaan waxay u jeedaan darbaaxyadii shalay ku dhacday bay soo iloobeen tii ka horreysay ku dhacday bay u jeedaan tan hadda lagu wadaysan u jeedin balban ku fiirsada Soomaaliya billahi calaykum waxa ka socda wadankeeni ama ka socda ama Soomaali hadana qurbaha ka socda waxa arkaysaa nin weyn oo hooyadiis oo kala gabar ah ama walaashiis oo kala u soo jawaabaya karaamadii bal sidayna kaga dhintay day nin weyn baa u soo jawaabaya gabar yar oo walaashiis oo kala ama gabar muxuu ahay hooyadiis oo kala buu soo jawaabaya caaya naadilayaay naayad bay ku haya bal karaam xumada ku dhacday Soomaalida aaway waxa la yiraahdaa adduunka waxa loo keenay baa la yiri
nimanka ragga Soomaaliyeed waa ku jiraan oo ilaa raggaasi ka mid yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ilaahay waa fadalay sababtoo adduunkan uu madax uga dhigay adduunkan koomkaan aynu abuurnay yaa madax looga dhigay yaa mas'uul looga dhigay rag baa looga dhigay dumar loogama dhigin iyo caruur rag baa looga dhigay aawa raggii mee bilaahi calaykum raggii balanku u fiirsado aawa raggii looga dhigay makan gabdhaha u jawaabayaan oo gabdhaha caayaya naashar muutayna ayaa dhilayahay ku hayaa maahan laakiin ilaahay baa og anigu ma garanayo ilaahay baa og subxaana qaadira ilaaha baa og aawa karaamada ilaahay siiyey aawa mas-uuliyaddii alla u dhiibay aawa dadnimadii adduun iyo aakhiraba beri la weydiin lahaa beri su-aal baa taal maahan waqti fog maahan beri waxaa laga yaabaa maanta in la weydiiyo adduunka waa aragta wax ka dhacaya aawe ragga mas-uuliyad baa alla u dhiibay waa madaxdii adduunkan weeye karaamadoodii aawe dadnimadoodii aawe magacoodii aawe muunadoodii aawe anigu hooyaanay wiilal baan dhalay hooyaanay wiilna waa i dhalay wiil waa la dhashay wiilna waan dhalay wiilna waa i qabaa karaamada raggu leeyahay waan aqaanaa inaan caayo maahan inaan xumeeyo maahan ha u malaynin inaan caayayo xumaynayo anaaba wiil ka samaysan hooyaday baa wiil muxuu ahayd aabbahay baa wiil dhalay wiil baa ila dhashay wiil baan dhalay wiil baa i qaba hooyo soo korisay oo soo rabaysay khayr allaha siiye intii dhimatay ilaahay subxaana wa tacaala jannada ugu bishaareeyay marka aniga wiil ina caayo u malaynina anaaba wiil ka samaysan cirqaygaaba wiil ku jira laakiin waxaan rabaa inay wiilashu meesha inta ka kacaan dhiigooda ceebtooda loo samaynayo ama muxuu ahayd adduunka ay joogaan in dhibaatadiisa xamili waayey inay xamilaan sababtoo ta ilaahay baa ugu talagalay subxaana qaadira dhibaato walba allah ugu talagalay waxa badbaadiyaa waa rag adduun waxa badbaadiyaa waa rag aakhiradeeni ka soo kaca qof walba camalkiisa aakhiradu waa qof walba camalkiisa laakiin adduunkan rag baa mas-uuliyad looga dhiga aaw mas-uuliyaddii la saaray oo berri wax laga weydiin lahaa mase ayagii baaba xoog u leh oo xooggii alla siiyey oo ilaahay ku karaamadeeyey xooggii alla ragga siiyo ku karaamadeeyey waxay u yeesheen inay gabdhaha bahdilaan inay gabdhaha baabiyaan inay caruurta baabiyaan inay kala tuuraan inay wadankii isku qabqabsadaan inay adduunka miyaa loogu talagalay mase waqtiga 40kii la waalnaa baan ku jirnaa waaba iga su-aale 40kii la waalnaa miyaan ku jirnaa ilaa waxaa la 40 sano dadku waalan yahay jireen ninka Trump la yiraahdaa oo hadda America shala laga qaaday waxaan u malaynayaa xoolo inuu soo raadinayo waxa uu sameeyay hadda uu leeyahay kuma qanacsan xoolo kuma raadinayo laakiin waalidii baa ku jirta adduunka iyo xukunkii iyo habba kursi isku wareejintii iyo wadan habba qabsanayo iyo waxbaa ku jira marka walaalayaal ilaahay idankiisa biidmillaah ilaahay subxaana wa tacaala horta hayna ku duwo xaqa hayna ku duwo ilaahay idankiisa ilaahayna ku duwo ilaahay xaqayna ma gees mariyo dad baa xaqa laga tuuraa oo la gees mariyaa oo waxa way ilaahay subxaana wa tacaala ilaa cadaabta aad maqasheen oo jahannaba dad in lagu guray rabtaa rag iyo dumarba marka waxaan uga digayaa wiilasha aan jeclahay oo aniga garbahayga ah oo aniga calooshaydan ka soo saaray oo ilaahay ugu beeray alxamdulillah wa shukri lillah waxaan uga digayaa cadaabta jahannabaan uga digayaa waxyaalo misqaal daratin oo adduunkan laga tagayo inaysan ku fogaanin darajo jeclaysi iyo kursi jeclaysi iyo xoolo jeclaysi inaysan adduunka aakhradooda dhaafin wadankan adduunka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu weydiinayaa ragga uu mas-uulka uga dhigay raggan uu mas-uulka ugaga dhigay ayaa ilaahay weydiinayaa wiilashan gabdhaha caayaya ayaa alla weydiinayaa wiilashan gabdhaha inta yararka aqliga ka siraan oo hoteelada la tagaan in darajada ka tuuraya ayaa alla weydiinaya subxaana qaadira sababta ta waxa kan waa makas weeye makasna waxa weeye waa mas-uul bay ka yihiin waxay mas-uulka ka haayeen hadday baabiyaan oo dhibaan oo caruurta ka laayaan oo iyaga dilaan oo dhibaato ku sameeyaan waa waxa iyaga alla mas-uulka uga dhigay aakhiro jahannaba una dad bay rabtaa ogaada aniga si jahannabaan idinkaga digaya ilaahay inuu idinka nabadgeliyo wiilashayda aan jeclahay walaalahayga aan jeclahay aabahayga aan jeclahay ninkayga aan jeclahay waxaan alla uga baryayaa inay cadaabtaas alla ka badbaadiyo
soomaali oo aan jeclahay oo dadkayga ilaahay inuu ka badbaadiyo dhibaatada adduunka ka jirta cadaawadda la abuurayo shisheeyaha gacantayna kula jira oo raba inay darajkeena ka xooraan ilaahay hayna ka qabta Soomaaliyeey raggeenu hadday aqliga seegeen oo ra'yigooda uu noqdo caleen la cuno iyo muxuu ahayd gabar la qabsado iyo mid been loo sheego iyo mid oday waayeeloo 9 jir raba inuu guursado 6 sano jira ilaaha subxaanahu wa ta'aala aqliga idin soo dejiyaan leeyahay shalay hooyooyinkaan haystay shalay ha u malaynina hooyooyinka inaan haysan TikTok ka baxaan laha baridiina aad muujinaysiin ka baxaan laha ilaahay subxaanahu wa ta'aala yuusan idin caroono aysan balaaye iyo buro idin ka soo bixin ka baxaan laha sababta waxa weey waxaan gaala inoo keentay ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadii guur alla kuu qoray hadaa laba dhagax dhexdood ku jirto waad helaysaa inaad qurux badan tahay oo gabadhaha Soomaaliyeed qurux badan yihiin adduunka waa laga ogyahay waxba ha ismuujinina ka baxa oo ilaahay subxaanahu caabudan laha laakiin maanta raggaan soo jeedaa wiilasha walaalahay oo anigu dhalay oo aan jeclahay baan soo jeedaa inaysan cadaabtii jahannaba aysan galinin baan uga digayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina ma dhihinin iscaaya oo iscadaaba oo ilaahay waa nacab yahay dulmiga waa nacab yahay dulmiga iska daayo Soomaaliyeey dulmiga iska daayo ilaahay ka baqa subxaana qaadir mar walbana waxaad ogaataan inaad dhimanaysaan oo qabri galaysaan aad aragteen oo labada mitira waad aragteen intuu dhan yahay iyo meesha loo galayo waad aragteen adduunkaana wuxuu ina ka qaadayaa male wiil walbana sharafta iyo quruxdu ku qurux badan yahay wallahi billahi waa la isu sheegaa adduunka wiilka edboon wiilka quruxda badan oo sharafta badan oo muxuu ahayd cilmigiisa raacada waa ka qiimo badan yahay wiilkan YouTube-ka muxuu ahayd intuu qaato gabdhaha ka caayo waa ka qiimo badan yahay adunkuba fiiriyo wiilal badan oo ma sha Allah xataa heeso aamusan oo sharaf loo magac leh baa jiro oo muunad loo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baqa marka walaalayaal waxaan idin leeyahay Soomaaliya ilaahay ka baqa nin walba iyo gabar walba oo YouTube-ka ku jirtana ilaahay wuxuu raali ka yahay ku soo gudbiso waxaan alla raali ka ahayn ka daayaan idin leeyahay ilaahay tawfiiq khayr qabtahay inuu ku hogaamiyo baan idin leeyahay wixii xumaan u qaato warkaygaasna iga raali ahaada cidna ugu lama jeedo ilaahna waa igu ogyahay dadkaygan waxaan la nabax cadaab dadkaygan waxaan la nabacay sharaf iyo waxaan la jeclaa sharaf iyo khayr la jeclay ilaahay haydi karaamadeeyo meelaad joogtaan ba waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu